السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan khiyaartana daawanaysa idilkiin ba meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid kamid ah barnaamijyada aynu maanta idiin soo gudbin doono haddii Allah uu dilay ka raali noqdo. waa maalinimo axada taariikhduna ay tahay 19 bisha May sanadka 2024. waa barnaamijkii ugu horeeyay aan idiin soo gudbinayno maanta. qodobada barnaamijkan idinku hayo waxaa ka mid ah saraakiil iyo mas'uuliyiin ka tirsan Israa'iiliyiinta ayaa ka wada hadlay waxa ay tahay iyo sababta ay hubka ku keenaan Xamaas. qaar ka mid ah saraakiisha sare ee Israa'iiliyiinta ayaa rumaysan in weli warshado ay ku yaalaan gudaha Gaza, ciidanka Israa'iilna ay u suuragali laadahay. haddaba tafaasiil ku saabsan sheeko la yaab leh oo arrinta ka dhacday barnaamijkan idinku haya. waxa soo kale aan barnaamijka idinku soo gudbin doonaa hay'adaha gargaarka oo ku eedeeyay Israa'iil ilaa 3,000 oo baabuur oo wada xamuul gargaara oo ku sugan macbar Rafah inay u diideen inay halkaas soo galaan si ay Gaza gargaar u geeyaan. sidoo kale waxay diideen dad dhaawacyo ah oo la doonayay in caafimaad loo geeyo dibadda oo macbarkaas laga gudbin lahaa. haddaba xaaladda sida ay tahay macbarka ayaanu barnaamijka idinku soo gudbin doonaa. waxa soo kale barnaamijkan idinku hayaa muqaawamada Ciraaq oo sheegtay inay weerartay qaybo ka mid ah gudaha magaalooyin Israa'iil ku yaala. iyadana warbaan idinkaga hayaa. sheekada kale xiisaha leh barnaamijkan idinku soo gudbin doono qaybta dambe waa khariidada dagaalka saakay halka uu marayo. saakay maxaa dhacay, taangiye la gubay iyo weliba duqeymo xoog leh oo socda ayaa la sheegayaa. wararkii ugu dambeeyay dagaalka ayaan idiin hayaa. kulan wanaagsan khiyaaray meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeennii ugu horeeyay maanta oo axada, iyadoo qodobo muhiim ah ay noo soo socdaan oo ku saabsan dagaalkii iyo khariidadii iyo sida ay wax u dhacayaan maantay. balse marka hore waxaan ku bilaabayaa muqaawamada waddanka Ciraaq ayaa war ay soo saareen saakay aroortii waxay ku sheegeen inay weerar ku qaadeen magaalada la yiraahdo Eilat ee dhacda dhanka badda Cas. magaaladaasu waxay ka mid tahay dhulkii Falastiin laga xoogay, laakiin hadda waxaa degan dad Yahuuda. waxaa ku taala dekad, sidoo kale waxaa degan shirkado waaweyn. haddaba maxay tahay warka ay soo saareen muqaawamada Ciraaq? haddaba sida lagu daabacay telefishinka Al Jazeera bogga uu leeyahay waxaa la leeyahay muqaawamada islaamiga ee Ciraaq war ay soo saareen waxay ku sheegeen inay bartilmaameedsadeen magaalada la yiraahdo Eilat. haddaba waxaa la sheegayaa muqaawamada islaamiga ee Ciraaq waxa ay sheegeen inay diyaaradaha daroonka ah aroortii hore ee saakay oo axada ay bartilmaameedsadeen goobo muhiima oo ku yaala magaalada la yiraahdo Eilat ama magaalada la yiraahdo Rashrash. waataay marka waxay leeyihiin saakay aroortii ayaan ku kalahnay Yahuudi deganay magaalada la yiraahdo Eilat. magacii hore loogu aqoon jiray waxa Rashrash. marka magaaladaas ayaanu drones inta ku weerarnay ayaanu maartay goobo muhiim ah ayaanu daroonka ku garaacnay. wiigan gudihiisa marka muqaawamada Ciraaq waa markii labaad ay sheeganayaan gudaha Israa'iil inay weerareen. maalmo ka hor ayay ahayd markii ay sheegteen inay weerareen magaalada kale ee dekada ku taala la yiraahdo Haifa, waliba goob lagu sifeeyo batroolka inay markaa drones ku weerareen oo ay gubeen. marka tafaasiil intaa ka badan oo ka soo baxday ma jiraan muqaawamada Ciraaq. Israa'iiliyiintu iyaguna wax wara oo arinta ay ka soo saareen oo ay kaga hadleen iyana ma jiraan. waataay weli dagaaladii iyo sheekadoodii way noo soo socotaa. inta aan ku jirnana wixii soo kordha waan idila socodsiin doonaa. balse markan waxaan u gudbaynaa sheeko ku saabsan xuduudka Masar iyo Falastiin, macbar Rafah meesha la leeyahay.
macbar rafaxa ee xuduudda ah waxaa ku xaniban dhanka masar sida hay-adaha samafalku ay sheegayaan ilaa 3,000 oo baabuur oo gargaarkii uu dul saaray. haddaan gargaarka qaar la fasaxinna uu hallaabayaa. waa raashin, waa caano, waa waxyaabo lamida, qorxa ku dhacaysa meesha, waa kulayl, hadee waa hallaabayaa leeyihi. marka maalmo ka hor masar iyo israa'iil way isu dhiidhiibayeen, adaa xiray fur, adaa xiray fur, adaa xiray. hadda hay-adihii samafalka waxay leeyihin dhinaca masaraa joognaa ee dhinacaana israa'iila wax naga xaniban yihin, iyadaa baashi ku dhegan, gargaarkii hala geliyo. haddaba marka aan idin tuso warbixin laga qoray arrimaha gargaarka, waxaa lagu eedeynayaa ciidanka gumaystaha israa'iil inay markaa iyagu mamnuuceen gelidda 3,000 oo baabuur oo xamuul gargaara wada inay galaan magaalada Gaza. xafiiska warfaafinta xukuumadda marinka Gaza ayaa waxa uu ku eedeeyey ciidanka gumaystaha inay diidan yihiin inay galaan ilaa 3,000 oo baabuur oo gargaar wada oo kuwa xamuulka ah. waxay sheegeen inay sidoo kale mamnuuceen oo ay u diideen inay macbarka ka gudbaan ama xuduudda ka gudbaan 690 qof oo xanuunsanaysa oo ay ku jiraan qaar dhaawacyo daran qaba si markaa safarro dibadda ah loogu soo daweeyo. haddaba waxay intaa ku darayaan xafiiska warfaafinta ee marinka Gaza in markaa macbarka rafax xiridiisa iyo midka la yidhaahdo karam abu salim ay markaa keenayso in markaa dhibaatooyinka ay sii kordhiyaan dhinaca bini-aadamnimada. waa tahay marka xuduudkaas dadka aadka u liita ayaa ka bixi jiray oo xanuunsan iyo dhaawacyada qaba iyo ayaa laga saari jiray si markaa masar loo sii geeyo, hadhow looga sii qaado meelahaas. dadka aadka u tirada badan ee loo qaaday imaaraadka iyo turkiga iyo qatar iyo meelahaas lagu soo daweynayo kulligood waa inay kasoo gudbaan marka hore macbarka ama xuduudda kasoo gudbaan dhinaca masar yimaadaan, kadibaa marka halkaa laga qaaday dhammaantood. marka hadda dadkii la qaadi lahaa iyo wixii oo dhan halkaasay ka xirtay nag. marka hawshaasu marka dhibaata kasoo socotaa la leeyahay halkaas. dhanka kale telefishinka aljazeera ayaa goordhow wariyaashooda ku sugan magaalada Gaza waxay sheegeen gurmadkii ugu horreeyay ee kasoo degay dekadda macmalka ah ee loogu talagalay Gaza inuu qaybo ka mida Gaza soo gaaray oo baabuurtii ay soo qaaday. waa dekadda Mareykanka uu sameeyey wixii kasoo degay ayaa dadka loo soo qaaday. marka dadka qaar waxaa leeyahay intaysan gurmadku xafiisyada meelihii loogu talagalay iyo makhaasiinada uusan gaarinba dadka bannaanka ay buuxaan, baabuurtii ayay kala degayaan qof walba wixii uu heli karo. hawshaas iyaduna halkaasay maraysaa. waayahay waxaa noo soo socda sheekooyin ku saabsan khariidadii dagaalka iyo arrimo kale, balse markan waxaan u gudbayaa sheeko kale oo cajiiba oo ku saabsan nimankii saraakiishii israa'iiliyiinta markii jabaaliya lagu baabi'iyey oo rafax loogu daray oo zaytuun loogu daray 10 maalmood ee lasoo dhaafay nagta laga geliyey. waa tii abu cubayda uu noo sheegay uu yidhi 100 taangi iyo baabuur iyo makiinadaha dhulka qoda iyo waxa isugu jiraan nagta ka dhigna yidhi oo halkaa lagu baabi'iyey. way shireenaa layidhi saraakiishi, waxay yidhaahdeen war Gaza annagaa ku wareegsan, meel kasta annagaa joogna, bad iyo berriba annagaa saas ugu wareegsan. sidee ku dhici kartaa 9 bilood nimankan inay isdifaacaan oo alyaasiinkoodu sidii maalinkii bilowga ilaa hadda ay u ridayaan, inay madaafiic ridayaan, hoobiyayaasha inay isdaba joog yihiin? sidee ku dhici kartaa? oo annaga dagaal yar markaan galnaba rasaastii waa go'day aa la leeyahay, maraykanowna sii, hebelowna sii, saasaa ku jirnaa. ee nimankan rasaasta intee ka keenaan? waana su-aal macquula moogtahay. nimankan gurmad ma helaan, dowlad wax u dirta ma leh, waa niman jabhada,
dagaalka intuusan bilaaban 7 Oktoobar ee sanadkii hore ka hor 20 sano ayay Gaza go'doon ahayd soo cajiib ma Gazadan lagu dagaalamayo go'doominteeda hadda ma bilaaban 20 sano ayaa Israa'iil ay go'doomisay Gaza saasay u go'doon sareed Israa'iil maaragtay meel walba ka fadhiday hub iyo xagee ka galayaan 20 sano ka soo tag 9 bilood oo la islahaa nimankan dhowr bilood hadday dagaalamaan waxa kan way dhamaanayaan rasaasta ka dhamaanaysa alyaasiinka ka dhamaanaya madaafiicdan ay soo ridayaan magaalooyinka ka dhamaanaysa wax dhamaana male marka nimankii way isu yimaadeen saraakiishii waaweyneed ee ciidanka Israa'iil generaaladii maalmaha dhan way shirayeen aliin waxay yiraahdeen hubkan xaguu ka yimaadaa sidii loo falanqaynayay nin walba loo falanqaynayay markii dambe kulligood waxay isku raaceen war hubkan meel uu ka yimaado ma jirtee nimanka ayagaa samaysta godadka dhulka hoostooda warshada ugu yaalaan halkaas alyaasiinka lagu sameeyaa marka nimankii waxoodii wali waa samaysanayaan wixii bambooyina wixii gantaalaa aan ridnay inta aruursadaan baaruudda kala baxaan habaystaan ayay haddana dib noogu soo weeraraan miinooyin ka sameeyaan marka hore sheekadaasu way inkirsanaayeen saraakiisha waxay lahaayeen macquul ma aha in gudaha Gaza wax lagu samayn karo laakiin hadda waxaa leeyahay kulligood indhaha u taagan way yaaban yihiin waxay leeyihiin waxa kan intaa lagu sameynaa nimanka meeshaanay ku sameeyaan haddaba sheekada la yaab kale ee cajiibka ee dhex martay saraakiisha militariga waxaa wax ka qoray telefishinka Al Jazeera waxaana uu ku bilaabayaa wuxuu leeyahay warbixino laga helayo dhanka saraakiisha militariga Israa'iil waxay sheegeen in saraakiishu ay rumaysteen in Hamas wali ay awood u leedahay inay hub samaysato oo iyada gacanteeda ay ku samaysato kanaalka la yiraahdo 12 ee Israa'iil ay leedahay ee telefishinka waxa uu sheegay isagoo soo xiganaya mas'uuliyiin ka tirsan militariga Israa'iil in ay militariga Israa'iil hadda garawsadeen in Hamas wali ay awood u leedahay inay hub ay samaysato waxay soo kale samaysataa sawaariiqda iyo noocyadooda kala duwan haddaba warbixintu waxay intaa ku dareen in wali Gaza lagu sameeyo kumanaan sawaariiq iyo waliba waxyaabo kale oo muhiim ah oo ay ku jiraan gantaalaha qoriga hoobiyaha iyo waxaasoo dhan inay wali samaystaan oo fiirso marka niman 20 sano ka hor go'doon ahaa 9 bilood dagaal joogto ah ku jiray hal maalin alyaasiinku waa dhamaaday ma maqleys taangiga inta laga arkaa bas waaye taangiga hadii isha la saaro alyaasiinku waa ku yaalaa Israa'iil marka way yaab waxay tiri Jabaaliya waxa naga raacay boqolkan waxa kan Abu Ubayda uu sheegayo waxba ka jira marka waa runay leeyihiin marka nimanka kan waxa kan nagtan ugu haya meel ay ka yimaadeen aan la garanayn haye xagee ka yimaadeen waxaan marka waxay yiraahdeen max kale ma jiro ilaa nimankan iyaga wali wax samaysta marka sheekadaasu waxay ahayd sheeko runtii aad cajiib oo ay qaybta ugu dambaysa barnaamijkeena ugu horeeya maanta oo axada waxaanu ku soo gabagabeynaynaa khariidadii saakay dagaalka halkee la kala joogaan saakay maxaa dhacay maxaa la kala gubay xagee wax ka socdaan Jabaaliya iyo Rafax labadaas waaye tii kaloo Zaytuun ee bartamaha ay mar hore ka baxeen wali weerar kale kuma soo qaadin labadii marka waxaan ku hormaraynaa Jabaaliya sida caadada ay ku taala waqooyiga magaalada Gaza haddaba wariyaha khariidada ka hadlaya wuxuu muujinayaa saakay inaanay jirin taangiyo weerar ku qaaday mukhayam Jabaaliya iyo Jabaaliya halkan wuxuu ku cadeynayaa in goobta goobaabinta magaalada Jabaaliya la yiraahdo ay duqeynayaan oo duqeymo ay ku socdaan gubashadaas iyo holacaas aad arkaysaan waa duqeymaha cirka laakiin ma jiro Jabaaliya
wax weeraro ah oo saakay ilaa hadda aan idila hadlayo weli laga soo sheegay laakiin xilli kasta nimankan way weerari karaan oo way geli karaan marka jabaaliya marka saakay wax badan ma jireen leedahay Al-Jazeera haddaba wariyaha khariidada dhanka macbar ayuu noo soo wareejiyay rafax waa dhanka xuduudda Masar waa koonfurta marka waxaa la leeyahay saakay taangiyay kusoo weerareen xaafadda la yiraahdo Assalaam markale Assalaam iyo madaar qadiim meesha la yiraahdo iyo wadada George ayay rabaan inay isku furaan marka saakay weerar ayay kula soo kalaheen aaga sida taangiga uu noogu tilmaamayo gacantiisa halkaasay soo weerareen u leeyahay laakiin isla markiiba nimankii waa diyaar muqaawamada Falastiin taangigii waa la gubay marka waa u jeedaan taangiga halka gacanta uu noogu tilmaamayo taangigii oo gubanaya sidoo kale waxay duqeynayaan meelaha kale ee gubashadu ay ka muuqato waa duqeymo ay ciidanka Israa'iil duqeynayaan marka macbar rafax isaguna saakay waxa ka dhacay arimahaas leeyahay oo dagaalkaas gooska dhacay taangiga Merkava ayaa halka lagu gubay Al-Yaasiin 105 ayaa la laqsiiyay oo halka lagu gubay marka saakay jawiga guud marka halkaas ay wax marayaan barnaamijyadeenu inta badan waa 3 maantana 3 barnaamij ayaynu qorsheynaynaa inaan idiin soo gudbino haddii alla idmo marka saakaydii hore xaaladku meesha uu joogay ayaanu idiin soo koobnay haddii alla idmo makhribadiina waxaan idiin soo gudbin doonaa wixii kale oo ilaa galabta iyo dhacay ayaanu idiin soo gudbin doonaa ilaa barnaamijka ugu dambeeya isaguna wixii lagu kala hoyday aan idiin soo gudbin doono barnaamijkeennii maanta oo axada intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa haddii alla idmo saacadaha soo socda iyo barnaamijyo kale ayaan idiin soo wadaa barnaamijka like gareeya oo share gareeya fadlan haddaad nagala socotaan Facebooka iyo YouTube-ka haddaad nagu cusub tahay subscribe